عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحابي وأنا تسلاني سودوا هذا مركلة ما أنت يجيب برنامج هذا قيمة بدن أيام ندين وضنا برنامج كمان أنت ندين وضنا يعني دي سو تبين دونا ومقدشو استاديوم وهنشوفنا الذي عيارها مقدشو استاديوم وده وصاق الله جرونكي ولي بغيبتي هرايا نشوفنا حتى ين وده وقلي دونا جرونكي وينا مقدشو استاديوم أصحابي هرو عرق أما هرو ويمن ما أنت أنا جوا حن بلقاضينا هنا ندي سو تبين دونا قروحنا يجرون كوين كيس أفريقيا مقدشو استاديوم يمكن نسيق لنا مرش waxaynu hadda gudaha u gali doonaa garoonka caalamiga ah ee Muqdisho Stadium iyo waliba fanis aad u jecel kubadda cagta oo runtii aynu oran karno Afrika Muqdisho waa meesha ugu xiisaha iyo xamaasadda badan leh kubadda cagta ama sportiga wax loo yaqaano waxaynu markaa eegi doonaa bal guud ahaan reer Muqdisho iyo sida ay u soo camiraan waxaynu arkaynaa dhalinyaro aad u fara badan oo ka qayb qaadanaysa daawashada ciyaartan isla markaana garoonka hadda ka soo baxaya waxaynu gudaha ugu tagi doonaa isla fanis aad u fara badan taageerayaal aad u fara badan oo iyaguna gudaha ku jira oo isla markaana daawanaya waa garoon runtii aad iyo cajab galiyay aad loo si heer sare loo naqshadeeyay ama loo design gareeyay oo ma sha Allah sidii garoomada caalamiga u samaysan halka laga sii galayo halka laga soo baxayo hadda waxaynu joognaa gudihii garoonka backgroundka iga dambeeya waa halkii lagu ciyaariyay kubadda waxaynu runtii arki karaynaa qiimaha iyo qaayaha uu leeyahay garoonkan iyo waliba weynida uu leeyahay waa meel runtii markii aan galay aad aan ugu farxay aadna aan ugu diirsaday muuqaalkiisa gudaha iyo sida loo naqshadeeyay iyo waliba sida loogu fudeydiyay ka qaybgalayaasha ama taageerayaasha daawanaya kolba kubadda ka socota ama kulanka ka socda halka garoonka dhexdiisa waxaynu isla arki karaynaa sida loo soo camiray runtii garoonkan loo joogo ee loo daawanayo ciyaartan hadda socota ee shibis iyo dhaxmaraysay waxaynu markaa dareemi karaynaa oo dhiirigelin aad u weyn noo ah inay dhalinyaradeenna helaan goobo ay isugu yimaadaan oo runtii ay kulamo ku yeeshaan ay ku daawadaan sportiga gudaha waddanka ka socday magaalooyinkeena ka dhex socday waliba waxay xamaasaddu aad u sareysaa markay ciyaarayaan ciyaaraha goboladu ay socdaan sidaas oo kale hadda lafteeda kama dhacdo oo waxa ciyaaraya ciyaarihii degmooyinka weey ma sha Allah waxaynu isla arki karaynaa ciyaarta halkan ka socota xamaasadda iyo xiisaha ay ku hayso dhalinyarada reer Muqdisho oo iyaguna doorkoodii aad uga soo qayb qaatay annaguna maanta aan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay isla markaana aan daawadayaasha ku jiro waliba anigoo taageeraya mid kamid ah kooxaha ciyaaraya taasina waxay ku muujinaysaa inaan la dareenahayn maanta bulshada iyo dhalinyarada halkan fadhida ee ka qayb galaya inay taageero u muujiyaan kooxahooda saadarteed waxaanu leenahay alla sii dhiirigeliyo horaha loo sii socdo hal la gaaro meel meeshan ka sii qurux badan oo ka weyn aynu marti gelino ciyaaraha Afrika marka dambana ciyaaraha adduunka ayaynu marti gelin doonaa insha Allah garoomada hal la qurxiyo hal la weyneeyo sidoo kale sportiga hal la dhiirigeliyo dawlad iyo shacab hadii sidan gacmaha la isku qabsado waxaan aaminsanahay inaynu gaari doono runtii meelo inta ka sii qiimo badan oo ka sii qurux badan oo ka sii qaaya badan oo shacabku runtii ay soo camiri doonaan garoomada waaweyn oo dhan waxaynu dhiirigelinaynaa dhammaan garoomada ku yaala geeska Afrika min Hargeysa min Garowe min Galkacyo min Muqdisho in runtii sidan iyo si ka sii heer sareyso loo soo camiro oo ciyaaraha doorkooda la siiyo ma sha Allah maanta waxaan idin la soo wadaagnay muuqaalka quruxda badan leh garoonka quruxdiisa iyo qaayihiisa wata dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan waqtiga ku wada qaadanaya kuna taageersan mid walba kooxdooda uu ku taageersan yahay waxa runtii halka ka bilaabmi doona safarkii maanta ee ahaa inaanu idin la soo wadaagno garoonka Muqdisho weynidiisa quruxdiisa iyo waliba qiimaha uu leeyahay markay dhalinyaradu sidan oo kale si nabada ay isugu timaado iyagoo taageeraya marka Durban
stadium waxaynu runtii u hambalyeynayna oo mahad celinayna dhammaan dhalinyaradeena qaaliga ee maanta halkan ku ciyaaraysa kubadda gaar ahaan waxaan wadanaa dharkiley baan wadanaa waana tiimka ku guuleysan doona insha Allah koob insha Allah صاحبيال سيادة شيدان بهذا أيام كسر بحناي كروفي دوشة استاديوم ونسيم على السلامين بعد هذا الوقت في عن صورة وحين لنا هاي باي باي